السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا وتاريخ جمهورية كونفورت أفريقيا. جمهورية midowga koonfurta Afrika waxa ay ka mid tahay tusaalayaasha ugu foosha xuntunida ee ku dhisan midab kala sooca kaasoo ahaa 5 milyan oo cadaan ay xukumaysay ku dhawaad 29 milyan oo midow ah. midowgaas waxa uu waayay wadajirkiisii inta uusan dhalan, kaasoo noqday jannada intii yareed iyo cadaabta inta badnayd. ahna saldhigga midab kala sooca waxay raaceen siyaasadda ku dhisan in la gumaysto inta badan oo lagu hayo deegaano sabool iyo abaar ah, iyo waliba in laga dhigto adeegayaal. xukuumadda cadaanka waxay ku xeeleeray kuna madax adkayd siyaasadda midab kala sooca, taasoo ay ka dhaxashay carada beesha caalamka, iyadoo ururka qaramada midoobay uu soo saaray go'aano dhowr ah kuwaasoo lagu go'doominayo midowga koonfurta Afrika soona baxay sanadkii 1962 iyo sanadihii ka dambeeyay. waxaa kaloo xiriirka u jiray koonfurta Afrika dowladaha dunida saddexaad ee midab kala sooca awgiis. qaabka isirka deegaanka koonfurta Afrika waxay ka kooban yihiin qaybo dhowr ah iyaga oo u qaybsama marka loo fiiriyo nidaamka midab kala sooca laba kooxood. cadaanka tiradooda lagu qiyaaso 5 milyan, dadka aan cadaanka ahayn oo ah banduuga deegaanka asalka ah ee ka soo jeeda oo lagu qiyaasay iyagana 24 milyan iyo 4 milyan oo ah iska dhalka Aasiyaanka ah, waxaana lagu qiyaasaa isku darkooda 29 milyan. sidaasna waxa ay ka yihiin aqlabiyadda inta badan dadka deegaanka koonfurta Afrika. cadaanka waxa uu ka kooban yahay Hoolanka, Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, waxa ayna isku magacaabeen Afrikanis oo ay noqdeen isir cusub. waxa ay ku hadlaan afka isku darka ah oo isku jira Ingiriiska, Jarmalka iyo Hoolanka. Afrikaanka oo dadka ugu badan ee deegaanka koonfurta Afrika waxa ay ka kooban yihiin qaybo dhowr ah, sida qaybta koowaad qabiilada Iswaasiga Suluuga oo laga baqi jiray inta uusan imaanin gumeysiga reer Yurub. qaybta labaadna waa qabiilada Tuusonga, Ranga, Tuswa iyo labada qabiil ee kala ah Fanta iyo Sutu.